السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقاليga isku soo noqdo wanaagsan waa walaashin maadaq iyo mar kale waxaan rajaynayaa adigoo caafimaad qabta inaan dib in kugu soo noqonay. waxaan rabaa inaan dhaho waxaad kala saartaa qabiilka iyo qabyaaladda. macnaha Soomaalida waxaaba iskaga qaldanbo sida awal waxaan maalmahan oo dhan aan ka soo hadlayo war ha isku qaldinina keelitaanka iyo jacaylka. jacaylka wuxuu yimaadaa ilaa kuma darnaadee guurka bacdi ka helitaankan wuxuu yimaadaa kow kus qofaada ka helin maba jeclaanaysido. marka sidaan oo kale haddana waxaan leeyahay kala saar qabiilka iyo qabyaaladda. qofka inuu qabiilkiisa oo ilaa kuma darna dadkiisa uu dhaxda oo ka jiro ceeb maahan. qabiilka waa la isku bartaa ayada quraanaha ku jirtaa waa la isku bartaa qabiilka la tacaaruf waa waxa kale qabiilkaaga inaad baalka uga dhex jirtid oo qaaraanka la qaybsatid oo cidda tahay dadka ka aqoonsado marmar waa la kaftamaayo waa lagu xifaaltamaayo de Soomaali baa loo yahay macnaha kala saara. laakiin tani waa qabyaalad. macnaha qabyaaladna waa qurun ee qabiilka qurun ma ahan. qofka inuu qabiilkiisa sheegto inaan dhaho maanta aniga waxaan ahay naag habar gidira inaan dhaho waan ku faanaa sharafa ii tahay waayo waa aniga qabiilkayga waan qabiilkan ka dhashay waayo waa dadkayga waaye ma fahantay ilaa kuma darnaadee waa inaan kala saaraa laakiin waa inaan kugu riixin oo ninkaasi waa reer hebel waa hawiye kaasi waa daarood kaasna waa dir waa inaan kugu riixin taas la yiraahdaa qabyaalad. qabyaaladaasna waa qurun. marka inaad kala saarto qabiilka iyo qabyaaladda waa wax u baahan inaad maskaxdaada ilaa madar geliso oo aad isku qaldin labadaas. haddaba intaan gudan galin barnaamijkeena falaqaynta qabiilka intaan gudan galin waxaan rajaynayaa haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe naga hilmaamin like iyo share-tana videoga socodsiisa asxaabay kor noo soo qaada. waxaan dhahay kala baro qabiilka. arrinta taagan hadda Ilhaan Cumar iyo wiilka Nasri dhex taagan ma ahan arrin ku saabsan qabiil. waa arrin ku saabsan qadiyad ku saabsan waaye qabyaalad waaye. because ayadoo qabyaaladna cayb ku jiro ayaa waxaad kala safanaysaa walaalkaagii oo islaamnimo kugu sheeganayay oo ilaa kuma dara Soomaalinimo kula sheeganayay oo luqad kula sheeganayay ayaa waxa ka dooranaysaa qof ajaaniba. marka waxaan leeyahay marna anaga shaati ha noo soo gashanin oo qabiil ah marna shaati Soomaalinimo ha noo soo gashanin. anigu intaas baan iri qabiilna ma caynin qabiilna ma aflagaadeynin. waxaan kaleeto waxyaabahan kaleeto dadka aqliga u saaxiibka kulay waxaan ka hadlay way dareemayaan laakiin dadka kaleeto maalayacniga meelaha ordaya waxaan leeyahay isdajiya. anigu waxaan ka hadlaya waxay tahay wiil baa maalowta soo galay wuxuu yiri war hawiyow adigu marka farmaajo soo dhisteen ilaa kuma darnaadee waxa dhahdeen anaga soo dhisay waa lagu kibreen Ilhaan baa soo dhisteen war farmaajo waa arrintaas waa arrin baab kale waaye. baabkaas waa farmaajo waa arrin kale oo qosaysa Soomaaliya waaye. waxa arrinta Soomaaliya anagayna soo qaribeen qabyaaladna soo qaribtay laakiin halkan qabyaalad ma looga baahna. halkan waxa looga baahan yahay Soomaali waa in qofka adiga aad ku matalaya waa inuu luqad ahaan kugu matala koo waa inuu islaamnimo kugu matala Soomaalinimo kugu matala luqad ahaan kugu matala inuu qabiil kugu matala ma aha. marka waxa waaye kala barta qabyaaladda iyo qabiilka. anigu waxaan ka hadlaya waxay tahay mar shaati baa noo soo gashanaysaa Soomaalinimo oo waa kana shaati baa noo soo gashanaysaa fiiriya ilaaha baa in ku dhaarshay dhageysta ya marna shaati qabyaalada noo soo gashanaysaa jawaabtan waxay jawaab u tahay yani idinka maxaa qabanaysiin. annaga hawiyaan daaradaan nahayna lama dhihin MJ baan nahayna lama dhihin waxaana la yiri saan baana la yiri waxa la yiri ma waxaad iga dooranaysaan anigoo in dhiigaagi ah dad qofkaagi anigoo ah oo aan kugu abtirsado miyaad oo aniga qofna iga ka turjumayn oo waxa u baahan tahay toos aad iigu imaanayso miyaad ilaa kuma darnaaday iga dooranaysaa qof ajaanib oo aad turjubaan u wacanaysid. shaatigan maxaa waaye waa shaati Soomaaliyeed waaye
وارون أنا جاي لها قفنا يجي بترجمة سمعت هذا حاجة بحنا وقلت جاي تصح عليه هاي ولا لسان إنسان بربنا دولة الدحين يجي جالس يسوي بحنا هاي عطسي أنا وقتها قفنا يجي بترجمة يسوي لكن قفك أجانب كه ترجمان وين أول طائرة ذاني وصومالية هالكاس هالكاس كتشودو ماشي عن حافظة كده جناي نبكى ساكو قبا واللي يقول عسرية سكول كده باتلا ساكو قبا المي وحلا ما برا شرع سيتيسنكي والإيدي دي وين ترجمان عن وعدا لكن أيضا ترجمان رقم معنا يسوع أنا قلت أنا يسوع جيدة تمرك حتى مركي ليه لهذا أنا قلنا دورات بنا هاي إم جي بقى ما كلها هنا أنا دورة لها ما دورة لها وايو أنا مركز قف دورات بتاع دورات كاكو دورته إم جي ده هاكو دورته هدا هوية ترى أنا نين هوية وحنا هبر كده هاكو دورته هوية هاكو دقيقة لكن أنا مركز إيسو استأجر أساس بايتري ولا إما هذا اللي هني أنا بالك شو وحنا هاي إن قبيل بان هاي واحد تري أفكار كوجو مثلا دين تادان كوجو مثلا لكن كاجان كوجو مثلا ترجمان وما بهند إدارة يتري تاس يسوي جيدتي مركز شعاتي كسومالي ما ده يسوق كشتانيجا ما فهمت مركا waxa tan waxa jawaab u tahay ilaa kuma darnaaday hawiye muxuu qabanay meesha hawiye ma jirin markaas waxa waaye meesha hawiye ma jirin okay aan ka soo gudubno dadka wax ma garantada oo aan ka hadlayo soo raacayana waa dadkan fiiriya commentayaasha intaan u gudgalin dadka ka soo horjeeda intaan u gudgalin waa commentigan aadayna waxay dhaheen dadka nakastiyeer ku haya did they forget meeshaan Minneapolis inay MJ leeyihiin macnaha dadkan sanadka dambe ku haya ilhaan ku haya inay Minneapolis MJ leeyihiin ilaa kuma darade ma ilooben Minneapolis korma MJ yeelat mideeda kaleeto daarad waaba ka soo tagtabo ana maxay yiri shalay maanta daarad aha maanta hawiye ahaan la isku riixa bari daarad la isku riixa bari ma jeerteen gudaha hadana ilhaan bal qofkay tahay commentiga igu soo qora bari Umar Maxamed Ciise Maxamed war fashi MJ ka sii tahay ayaa labadaas ay isriixayaan u fiirsada adigu sheekada meesha u socota oo jeedin fiiriya daarad inay leeyihiin xataa may dhihinin haday dhileen xataa liist xogaa macquul ahaan lahayd MJ inay leeyihiin run ahaantii haday Soomaali ay leedahay Minneapolis dadka xaq u leh oo Soomaali iska leh waa ogaadeen waxa waaye baalka shaqo iska leh oo u badan oo ree baalka ishag dadkan ka imaada meelahaas ree qabri bayax iyo meelahaas ka imaaday ayaa u badan Minneapolis dadkaas u badan Minneapolis kalimahan America dhan dadkaas u badan marka runta laga hadlo marka waxa waaye daarad ma sadin hada dhila la lisaha waxa dhila oo warun ogaadayna ku jiro oo ayaga u badan marka MJ ya u badan ay gudaha sii gashay aan sii socono waxay tiri tan dariya waxay tiri no more حاروية تم وعي تميسا معناها هذا لدى عيدا ما يقول قمرنا ماشي لا يماذا وحيابها قارها لكن عيدا ما في عنه وقف وينه انتو سو استاغ السوشيال ميديا صافرتي انه إلهكم مدرنا هذا وجهك انتو صحرته بدنا ددك عينا الى aragteen ma qaane waa dadka wajiga soo xirta ama dadka aan sawirka meesha soo saaran way kalsooni isku ma qabaan dadka intay dhex imaadaan inay ra'yigooda ka hadlaan maadaama ay kalsooni isku qabin oo dadka inay intay dhex imaadaan oo dadka laga aqoonsado ay isku qabin oo ilaahay madarnaade wajigooda la aqoonsado ay isku qabin waa inay intay wajigooda soo qariyaan ama maaska soo xirtaan ay dadka aflagaadayaan ayagu waa dhaqankooda waxa u geynaysa kalsooni darra u geynaysa ma ahan marka intaas ku qaata qofkan uu yiri ciilan bugta reer dameer في فدارات باور ريد مير يا بوكا بل إله بقى كوجود درشة أنا كشلا مركا يتري ورا أنا إيمة تجوت إدارة مركا يتري ما أنت أنا مركا قبيل يقول راح ذي لبدي أنا يا بوكا ما أنا جابوكا بس عادي جابوكا وايو أنا إلا هذا وحن تاجنا هاي والإلهان عمر قبيلها كولا سفنينا شال الصومالي بام كولا سفناي أيضا واقف فرقد إسكاي لوبي أنا كلك عنتا إسقابسنا عن صومالي إنما وحكوا الراسنو أنا قلت أسن تاجنا هاي هذا كنا كان واحد تاجنا هاي ضمير هوية تاجنا بل يا بوكا لبدنا بل هلا سويديو أنت كلاتو واحد ما لا يعني مركا برنامج كبرك وحكا بلابطي تذكر حكا بلابطي وبرنامج كي قبيالة دي أيا دبلو سو حسبونيسينا يا إلهان وحكا لو ما سعتو إني قبيالة دي بسو حسبونيسيسو أول إني شاقي أن لا يابرن وحان أيضا جاقا كو راسانيسو أما دادك شيشايا أوغا راسانيسا مدح أوغا راسانيسا أي قنيسين تنولا سو صفت ما أنت روا كان هادرتان إلاكم مدر هذا قبيل دادك برشيد براها برشيدي أورينا دارو دي سوشيال ميديا وحلوكا لبحي هوية دارو دالوكا لبحي يا مسؤولكا أيضا مسؤولكا وحاواي دادك عقلك وصاحبكا وحال ربا inay ka dhidiyaan ma sha Allah dadka horta ogaadeen iyo kulli dad badan ka dhidiyo dhaheen war anaga waxaan qabiilno kuma taageerayno min sooran oo Soomaali weeye waxa way qurbaha markaan joogno
anaga ninka gaalka cadaanka Soomaali buu noo arkaa ما شاء الله dad badan baa aqli u saaxiiba oo ka dhidiyay laakiin dadka wax ma garatada sida Captain Ayub iyo dadkan comment ku dhiglayaasha iyo dad badan aan arkay ما شاء الله waa kana hadda nin mareexaan oo la dheeraayo daarada waa kana ما شاء الله waa kan reality uu ka hadlaya oo baalkii dabca seer waa wada taqaanin wuxuu yiri ku dooramayna anaga u hadlayna Somali American mar dambe ku dooramayno waa reality ku ka hadlay that's the reality marka waxa waaye adiga oo marka waxa la diidan yahay in shaati qabiil ah soo gashato marna shaati shaban soo gashato marka fiiriga dad badan hadda fiiriga dadkan waa kan dabca seer we will not vote for Ilhan Omar anymore as Somali Americans. جدا بكون دورا منه. نيلستان وانا تارا دور مريحانا because why إن قدرت كموسا إلى كم ترى هذا داروني ما بيسقادين ركني ما هو هذا وارنتيس كدورا مين أنا Somali American إلهان واحد دورتي Somali American دورتي دارون ما دوران MJ ما دوران ماشي نكو قبوبة هدا روتين إن MJ نصوت دورتان قرو اسكو صو شرحة ماشي هذا إلى كم ترى هذا ملهاسي Somali يحمر حتى هذا مجرتين كنا صوت MJ ده صوت هذا روتين لكن أنت Somali American أيال يرهذا وحنا هاي Somali American واحد يرهذا دارود مجرو واحد MJ لدهنا مجرو واحد ويا لدهنا مجرو here أنا قدرن وحنا هاي Somali American باناي أما ديد أما يل أنا كوتالا هذا اسكو شو شرح هذا MJ أروح اسكو شو شرحت عرك على الروبين إيش ماشي كاي ما تكون نقينا إنا معنا ماشي لوجا ما بهنا MJ يقرعي لوجا ما بهنا ماشي وحنا لوجا بهاي هاي ضد إلى كم ترى هذا Somali American وحق أوضه أوكي معك وصل علي ضد كمان كويك على الجبين هذا في ريول كان ما شاء الله علي رجع يسون درا ما جابتينكو حتى صدوري خيرين ما سيجيدا ديوان هينا ورك وحبا ما قرصونا انت لدق كرت لدق لكن ادكيسا markaaga hawiyana waligiiba iska hurtee inta dhiig istaaqof ku jira jooga waxaan kuuri guriga police dhicmaaye wiliga iska qaylo yiri oreeda baa la kala socmay oreeda qabyaalada dhanka dhac waa loo aaday wuxuu yiri intuu dhiig istaaq igu jiro meeshan waxa way waa ka soo horjeesanayna waa runtiis waxa way qabyaalada uma hadlayo wuxuu hadlayaa de meesha hawiyaha iska hurdaan waa runtiis iska hurdaan wixii iska hurdaan laakiin intii soo kacday mar dambe cod dambe Soomaalinimo kuma helaysid waxba qayqaylay waa runteed maaga isku xiqijinaysa aniga kuma tala codkayga ma isku xiqijinaysa ashakada markuu aad batal mid رجع على مقال في وريبة ما جابتينكو تاريخ ذا لنا محيط حالي رجع يسون درا ما جابتينكو حتى صندوق المدى كجورين وحوم الصحراء يا ما جابتين Soomaaliya saga kaliya maamuli kara taariikhda dib ugu laabo wala reeyade waa jeclaari qofka ma jeerteenka xanta gurigiisa bisoo dhigistaa xanta reeraha kala loo mashida FM kaas ma loo geeyo ilaa aabiis iyo hooyadiis waa iska dhalma jeerteen loo cid kala ma maqlo meeshaas uu ku soo koray xantaas oo TikTok oo sameysana wuxuu ku leeyahay awoogay baa talin jiray aabay baa talin jiray ayay oriyeen soo dhawaad ma jeerteen oo ina Cabdirashiid Umar Cabdirashiid aabiis يا عبد الله يوسف الصومالي مدحوينك الشيقة شن جامبيون ريال مدريد أيها وحاربتا إنا الله بربر تموتها جلسي إنا الله بربر معناها أساق هادرتان إنك استحوغا يرى يكون ججورة لكن معناها إنا MJ با ميل كستا كتاليا ورشاكد وردارات حتى متاقنا بالفيري إلهي باكو قول هرشي MJ با ميل كستا كتاليا معناها رأيي وشاكدين بل حتى ولا كلا جبي I don't know إني دتك قاري سو كلي دونان لكن هذا كهر waxaan xasuustaa wallahi been ku sheegaya aniga qabyaalada waa nacbaa laakiin dadka qaar waxay ku dhacmaan marka arko waa yaaba hadda ka hor gabar waxa jirtay oo MJ ah wiligay mar rabin inaan qisadan ka hadlo laakiin waa qiso tan oo eg camal waay waxa waaye gabadhaas waan caawin jiray wax walba ilaa kuma darada inay iskuul rabto inay dhigto iskuulkii aan u fududeeyay qaabkii u fududeeyay waxyaabii u fududeeyay ilaa kuma darnada iskuulada waxa jira lacag la isasiiyo marka cambaar dhigatid bal lacag la isasiiya jirto meel laga raasada jirto aniga waa ka galgal badana iskuulka macallimiinta iyo wax dhanaan saaxiib la aha
waxaan samayn jiray markaan arko dhiil soo baxay oo kaleeto mar 2 kun la isiinaa 3 kun $1 waxaan dhihi jiray markaan soo qaato Soomaalida meesha joogto dhan waa u wici jiray especially ayada maadaama hooyo ay kaligeed ay ahayd oo ilmo ku korsanaysa wadanka ay ahayd aad baan ugu naxariisan jiray because waxaan rabaa waxaan aniga cuno inuu qofka walaalkaygan ay cuno walaalkay markaa ku dhahay uma fiirinayo habargedir ahaan uma fiirinayo qabiil ahaan sufujuf ahaan uma fiirinayo waxaan u fiirinayaa gabar Soomaaliyeed oo walaasheeya oo muslimada oo macnaha tabar yar ayaan u fiirinayaa marka uma fiirinayo wallahi qof kale hadii aan la ma wici lahayn waxaan sameey jiray haday maqan tahay xataa ma wici jiray hadii jirnaa ku aawe maanta waa xanuunsanahay xanuun kasta ay qabtid gaari soo raacdan dhigi jiray dhiil baa meesha ka jiro lacag la bixinayo $2,000 kaalinaya bishan kirada iskaga bixisida soo orda dhigi jiray way soo ordi jirtay way iimaan jirtay way qaala jirtay show ayada markuu dhiilka soo baxo aniga hadaan ka maqanahay afkay xiran jirtay waa mid la isdheer yahay wax jab afkay xiran jirtay dhiila soo baxay waxaan maqlayaa waa la qaatay 2 kun la qaatay 3 kun la qaatay aniga waxaan aniga la ima soo sheegin maxaa dhaxay saaxiibta waa joogtay kuma soo sheegin miya waxaan jiray wax u jiraan wallahi saas ay tahay wiliga never give up mar walba uu dhiil soo baxo waa wici jiray itixaamada waxaa meelo qishqish laga helo waa taqaan ardada waa maanta qish leela raadiyaayo saa itixaanka ugu baasi leed maanta waxba la isku daba gediyaa wax yar hadaa hela qish hadaa la xidhanaya qishkaana itixaanka dhac halkan soo baro su'aashan soo baro inta ka bax sidii culigaan dhala camal dabada ka wadi jiray qishka iyo haday noqoto haday dhiil noqoto haduu dhiil meel ka soo baxay iyo wax saasaan maanta qishka ugu bixi jiray layman haday noqoto wax walba wala qaybsan jiray show ayadana nacayb waxay ii qabtaa qabiil ahaana balaayadaas ku jirto ma ogaan lahayn weligay ma ogaan lahayn sama qabas aba biyo u celiyo wallahi billahi taala wallahi hatta mar hatta corona dhacayo ilaa kuma darnaado guriyaha kirada la iska bixinayay waa u tagay waxaan dhihi jiray kaale aya kirada waa la iska bixinaa kaale halkaas tag wax walba dhiil walba soo baxo waa ku eexi jiray waa raadi jiray hoday hulday saxta sometimes waxa dhacday inta taleefka iga qaban weyso inaa gurigeeda ugu tagi jiray wallahi inaan bay sheegin marka yawmal min ayyam waxa dhacay gabadha marka aniga marka waxaan jeclahay qofka saaxiibkay haduu maanta dhan qabiilka caynaayo dan kama lihi saaxiibtinimadeeda ka wata ayada iyo garaadkeeda laakiin aniga waan xushmeeyaa qofka saaxiibkay xataa hadaan qof wax ka sheegayo oo qofkaas isku qabiil yihiin xoogaa waa ka gagambada waa ka warwareegsadaa maalin walba waxay dhahdaa habarkeeda hawiyaa xunka nin hawiyaa seegi ma guursan lahayn nin hawiyaa waxaan dhaashan ilmooda haysataa nin hawiyaa oo ku imaado ilmaha kula kuna ma wada guursateen wallahi bila talaa waxa la iqaataa inaan nin kale nin MJ hatta daarad ku dhiimaysa isla weyn intay ka gaartay wallahi inay daarad ku dhiin ana nin MJ free ku siiyo oo nin MJ hatta shanta ka dhala ka tagiye see maxaan waa nin MJ hadana free ugu siinaysa mushkilad male inta nin kale hawiyaha aan farciisa badin lahaa waa inaan nin MJ farciisa abadiya bal fiir mentality ku jiro ana waxaan dhihi jiray waa single mother crazy waaye faraha ka qaalaas dhihi jiray يوم من الأيام مركب مالي والبو إيجا بطبطي سامع ويجا دسا قشة أوكي أنا حلنا والله بلا تلا أنا نيو توجني ماذا هبر قدرها كأنت إنه ما أسكت قصلي جري هذا توجني ماذا وحكوهش الحمد لله ده جري ولا وح ما حدين أساسا تاينا وكو قاعدين جري وحب هذا المال كم يسوق قاعدين جري ما ما كم ده باويل إن إلهان عمر كي يركب فريو كاسن اسكت لو أنا هين أيان فيسبوك أو جهم بليجي إلى كم ده أنا سناب صارت gabar walaasheeda waxay soo qortay alla maskiin kana ma noola markaas xalee gabadhan maxay heblaay walaasheed waaye maxay ku soo dhahaysaa maxaa ka wada waan xuna midkii xunka hawiyahaayo gabadheena ay ka tagtay soo ma ahan san ku yiri abay xogaha fagaanin ninka wiilka walaalkay baan ku yiri midada kale ilhaan umar inaadeerta haday tahay adigu MJ baa ka galaysaa kani waa inaadeerkay ii dhow baan ku yiri ma fahamtay xogaha soo maxad gudbaysid baan ku yiri marka walaasheed baa ag fadhiisay waxay tiri wallahi bila yarkan maskiin hawiyaa waxa ku yiri walaalay maxay taa maskiin hawiyaa xogaa kisto markaas xogaa igalay bahasha mogtahay waa dil ugu taata laga babadiyo bis waay mogt waxba igalay markaas waxa ku yiri see wax ugu daan ku yiri wiilka aniga walaalkay yahay maskiinimadu in ka bari waxay taa haday walaasha raacday nin ajaanib oo cadaan oo gaal haday raacday walaalkaygana nin gabar muslim asagaaba maanta ma sha Allah gabadha quruxda badan oo islaamka guursaday oo in adeertiisii adigu waxaan ku iri raacday warna in kama sheegin way waxaan ku xushmeynayna dumaashi ahaan iyo Soomaalinimo iyo ayada ilaaheeda baan dhahnay oo afaareeda bagalne maxay idinka baq halkaas ka wada gabadheen waxa weeye uma qalmade waxaan ku iri marka waa yahay wiil Soomaaliya oo ilaah kuma darnaaday oo ku dhiiga oo islaama oo 3 ilmood ka dhalay uma qalmo laakiin nin gaala ayaa u qalma miyaha wallahi waxay tiri hawiye aniga inta guursalaha gaalkan guursalaha maalintaas aan ka qoostay maalintaas ay you know what
waxyaabo badan waa fagaan karay waa iska celin karay laakiin waxaan ka baqay u fiirsada waxaan ka cabsaday haddaan gabadhaas anoo iska celinaya aan MJ wax yiraahdo dad badan oo saaxiib lahay inaan luus gareeyo ama aan dad badan oo aan qaraabada aan reeyay liya dad badan oo qaraabada ah inaan luus gareeyo ama aan wax xun uqdad aan geliyo ama dad saaxiibada ay sida gabdho badan oo saaxiibada ay jiro gabdho badan oo maasha Allah oo ku tashto oo akhyaariin oo sharaf laho because MJ dad wadaad leh oo waxa waay ilaah kuma darnaade oo umad kasta kugu dhex jira marka sidaasaan ka baqay waxaan ka cabsaday in dadkaas ay iga xumaadaan laakiin ayada marna waa ii xeerin weysay saaxiibteeda qaaliga ah oo intaas daba socotay way ii xeerin weysay marka taasaa la yiraahdaa qabyaalada meel xun ka tuuraysa ee gaal ka tuuraysa taasaa la yiraahdaa qabyaalada midda adiga walaalka u hili kartid ajaanib ina ooga hilayso hindi ooga hilaysid taasaa qabyaalada midda aad dhahaysid nin walaalkayga uma qalmo inaan ilmihiisa aan u dhadhalo ilmo u dhadhalo laakiin nin gaala ayaa u qalma taasaa qabyaalada qabyaalada maahan inaan qabiilkayga ku faano inaan qabiilkayga baalka dhexda oga jiro inaan ilaa kuma darada qaaraanka la qaybsado inaan aniga naag habar gidira meesha intaa soo istaago sharaf ayay ii tahay inaan ku faano waayo aniga qofna ma aflagaadeeyo cidna ma caayo laakiin qabiilkayga inaan ku faano marnaba igama dhaadhacsii kartid qabyaalidistaa tahay maandeeqay because qabiilkaagaa sheegata of course qabiilkayga waa ku faanaya qabiilkayga aniga ah that's my qabiil aniga qabiilkayga aniga ah waana ku faanaya maxaa ka qaadi kartaa laakiin anigu sidaadoo kale kuma caynayo kuma aflagaadeynayo midda waxa jira idinkaba qabiil baa sheegtiin yes anaga qabiilka waan ku faanaa waan sheeganaa waan amaanaa dhexdan oga jirnaa qaaraanka loo qaybsanaa midkeena qaldan waan qabanaa laakiin adiga oo bahalka ii sheeg qabiil ku soo hoosgambanaya marnaba si kasta haddaan kuu necbahay si kasta haddaan kuula dagaalo si kasta haddaan isku gumaadno marnaba ajaanib kaala safamayo marnaba qof gaala kaala safamayo marnaba qof ajaaniba dhinaciisa aadi mayo anigoo kugu riixaya qabiil ajaanib kaa doorsamayo way dhici kartaa inaan qabiilkayga kaa doorto laakiin marnaba ajaanib kaa dooramayo waa midaan aniga iyo adiga aan isdheernahay marnaba kaa dooramayo qof ajaaniba aniga sharaftaasna ilaahay isiiyey karaamadaasna aniga ilaah baa isiiyey ilaah baa igarasiiyey inaan qof ajaaniba kaa doorane oo muslimnimo kugu doorto oo Soomaali ahaan kugu doorto ilaah baa igarasiiyey ee adiga Allah ku garasiiyo inaad Soomaalinimo iyo ixtiraamto muslimnimana iyo ixtiraamto taas Allah ku garasiiyo intaas aan oga baxaya arinta qabiilka assalaamu calaykum intaan video lamid dib ugu kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa salaamatihi